بسم الله. halkan waxaan ku duwanaa casharka ciwaankiisu yahay isugeynta jajabka hoose ee kala duwan, adding with unlike denominators. waxaa la rabaa markaan isu geynayno jajab hooseyaal kala duwan, waxaan u baahannahay marka hore labadan arrin baan u baahannahay oo muhiim ah. inta aadan isu geyn jajab leh hooseeyo kala duwan, marka hore midee hooseyaasha kala duwan ee labada jajab. mid walba wuxuu wataa hooseeyo gaara oo ka dhig isku mid labadooda. mideynta hooseyaasha waxay u baahan tahay in aad hesho dhufsano yaraha ay wadaagaan labada hooseeya, labada number labadaba u qaybsami kara, ama number labada hoose u qaybsami kara. waa marka hore. arrinka labaad waxa weeyaan qaabka loo helayo in hooseyaasha la mideeyo. waa u bedelidda jajabka hooseeyaha ah. jajabka waxaan ka hadlaynaa numberka oo dhan, midka hooseeya kama hadlayno. waa sareeyaha iyo hooseeyaha labadaba. inaad u bedesho inaad heerkiisa kordhiso ood qaado iyadoon waxba ka bedelmayno qoondayntii, oo qaybintii kordhintaasi kama bedelayso qaybtu intay ahayd. tusaale ahaan, nus hal loo qaybsho labo. haddii aad haysato hal shay oo laba qof u qaybiso, waa la mid haddii aad laba shay haysato oo afar qof u qaybiso. qoonda ahaan waa isku mid, sida wax loo qoondeeyey oo loo qaybsho waa isku mid, waa isu dhigantaa. waxaa kamid haddaad 3 shay haysato afar qof u qaybiso, iyo haddaad haysato 9 shay oo aad 12 qof u qaybiso. macnaha qoondanda aan ka hadlayno waxa waa qaybta la helayo, ama qaybta qof walba helayo way isu dhigantaa. hal shay oo la qaybiyo 2 qof loo qaybshay nus iyo nus bay helayaan. 2 shay 4 qof loo qaybshana qof walba wuxuu helayaa waa nus u helayaa. waxaan u gudbaynaa tusaalayaasha. waxaan ka hormarinaynaa intaana tusaalaha dhigin, waxaan ka hormarinaynaa sida heerka jajabka kor loogu qaado ayaa waxaan ka dhigaynaa tusaalayaal kooban oo aan rabno marka hore in aynu fiirino qaabka jajabka heerkiisa kor loogu qaadayo. tusaalaha koowaad mathalan haddaan haysto 3 loo qaybshay 4, iyo haddaan haysto 4 loo qaybshay 5. labadan hooseeye ee midna 5 u yahay, kan waa 5 kana waa 4. haddii aan marka rabo inaan hooseeyahan yaashaan mideeyo oo laba jajab oo hooseeyahoodu isku mid yahay ka dhigo, waa inaan helaa mid walba mid u dhigma. 3 loo qaybshay 4, waxaan samayn karaa inaan 3da ku dhufto number, 4tana number ku dhufto. waxaan raadinayaa marka number aan ku dhufto. marka waan ku bilaabi karaa tirada caadiga inaan ku socdo marka hore, oo aan dhaho 2 aan kor ku dhufto, hoosna 2 aan ku dhufto. waxaa ii soo baxaya marka 6 loo qaybshay 8. 6 loo qaybshay 8 iyo 3 loo qaybshay 4 waa isu dhigmaan. waan wadi karaa haddana waa mid
qaybtan waa mid waxaan samaynayaa haddana mid kale waxaan leeyahay 3 loo qaybshay 4 isticmaalo kalarka madow mar labaad 3 loo qaybshay 4 hadda labaan ku dhuftay kor iyo hoos waxaan ku dhufan karaa 3 waxaa ii soo baxaya 9 loo qaybshay 12 9 loo qaybshay 12 way u dhigantaa weli way u dhigantaa 9 loo qaybshay 12 way u dhigantaa 3 loo qaybshay 4 waa ku socon karaa hadda waxaan ku dhuftay 3 loo qaybshay 4 mar labaan ku dhuftay marna 3 aan ku dhuftay waxaan ku fiirinayaa haddana mar labaad saddexaad aan leeyahay 3 loo qaybshay 4 waxaan ku dhufanayaa 4 aan kor iyo hoos ku dhufanayaa waxaa ii soo baxaya halkan 12 loo qaybshay 16 12 loo qaybshay 16 way u dhigantaa sidaas si lamid ah 3 loo qaybshay 4 ugu dhigantaa waxaan ku daraynaa tusaale labaad waxaan ku daraynaa mid kale waxaan leenahay 3 loo qaybshay 4 waxaan ku dhufanaynaa 5 baan ku dhufanaynaa haddaan 5 kor waxay noo noqonaysaa 15 hoosna waxay noo noqonaysaa 20 sidaasaan kusii socon karnaa marka haddaan soo qaadano waxaan haysanaa 3 loo qaybshay 4 oo u dhiganta 6 loo qaybshay 8 oo u dhiganta 9 loo qaybshay 12 oo u dhiganta 12 loo qaybshay 16 oo u dhiganta 15 loo qaybshay 20 numberkeennii kale haddaan soo qaadano oon dhahno hadda aan wadanay kaas waa hal number buu noo ahaa keennii kale haddana dhisaynaa oo waxaan rabnaa labada numberka isugu imaanaya inaan aragno number walbana sidaasaa loo sameynaya numberkeen wuxuu ahaa 4 loo qaybshay 5 4 loo qaybshay 5 sidaanoo kale haddaan u taxo oo waxaa u dhigantaa oo aan dhihi karaa 4 loo qaybshay 4 lagu dhuftay 2 iyo 5 lagu dhuftay 2 waxaa usii dhigantaa 4 lagu dhuftay 3 iyo 5 lagu dhuftay 3 waxaa usii dhiganta 4 lagu dhuftay 4 iyo 5 lagu dhuftay 4 waxaa usii dhiganta 4 lagu dhuftay 5 iyo 5 lagu dhuftay 5 haddaan marka jajabkan dib aan u sameeyo halkan waxay noqonaysaa tan waxay noqonaysaa 8 loo qaybshay 10 kana wuxuu noqonayaa oo u dhiganta 12 loo qaybshay 15 kana wuxuu noqonayaa 16 loo qaybshay 20 kana wuxuu noqonayaa 20 loo qaybshay 25 halkan waxaan fiirinaynaa marka keenii hore iyo kan labadan fraction numberkay isaga mid yihiin marka haddaan fiirino kan hoos maxay hooseyaashan fiirinayna marka kan aan haysano oo kan ah 3 loo qaybshay 4 iyo 5 loo qaybshay 4 keebay hooseyaasha ka midaysan yihiin hooseyaasha waxay ka midaysan yihiin kan labadaas fraction
oo midna uu yahay 16 loo qaybshay oo 20 iyo oo kaasi 4 loo qaybshay 5 ka yimid iyo midka kale 3 loo qaybshay 4 oo 15 loo qaybshay 20 labadan haddii aad fiiriso hooseyaasha waa ka mid maxaan marka arrintan ka dhaxlayaa waxaan raadinayaa inaan hooseyaasha mideeyo mideyntii hooseyaasha aan mideynayay waxay aan helay in laba fraction oo labadeeda fraction u dhiganta oo hooseeyuhu uu mid yahay inaan halkaa kala soo baxay mar haddaan hooseyaasha mideeyo waxaa ii sahlanaanaysa inaan isku daro labadeeda fraction sidii hore aan u soo baranay hoos fractionadu markay hooseyaashu mid yihiin sareeyaasha isku diraysaa hooseyaashana mid baa ka bacdina waa simplify garaynaysaa marka halkan waxaan ka qaadanaynaa marka inaan si sahlan isugu dari karno annagoo isticmaalayna linekan inaan isku dari karno labadeenan fraction oo ah midna uu yahay 3 loo qaybshay 4 lagu daray 4 loo qaybshay 5 maadaama mid walba mid u dhigmo kii uu u dhigmay baan qaadanaynaa isku darkooda kana wuxuu u dhigmaa 15 loo qaybshay 20 kana wuxuu u dhigmaa 16 loo qaybshay 20 waa isku daraya marka labadan isku darkooda iyo labadan kale oo waa isugu kaymid waa same waa yani colorkan raba inaan ka bedelo kana wuxuu dhigmaa 15 loo qaybshay 20 kana wuxuu dhigmaa 16 loo qaybshay 20 isku darkooda marka sareeyaashan isku daraya 15 iyo 16 isku daraya waxa ii soo baxaya waa fractionkan halkaan ku sameynaya waxa ii soo baxaya 30 loo qaybshay 20 meeqa 20 baa ku jirta marka waa su'aashu waxa ku jirta halkii baan dhigay maxaa soo haray marka 11 oo loo qaybshay 20 sidaas istiraatiijiyadaasaan isticmaalayna markaan isku darayno waa inaan skillkan isticmaalnaa inta badan markuu qofku sida nuxurka hoose fahmo ama muhiimadda aasaaska u fahmo yani waxaa ka sahlanaan lahayd inaan korna ku dhufto 4 korna midna 4 ku dhufto midna 5 ku dhufto kor iyo hoos waana waxa haddaad fiirisid ka muuqdo labada tan aan mathalka u qaadanayna haddaa fiirisid labadan hadda mathalka aan u qaadna aan kasoo dhiraandhirnay kan iyo kan kale oo aan ka keenay kan ah labadaba haddaa fiirisid kor iyo hoos waxaa lagu dhuftay isweydaar labada number oo aan midna 5 u yahay midna uu yahay 4 marka labadan isku aadisid waxaa arkaysaa isweydaar numberka in loogu dhuftay labadooda number waana labada hadda aan soo xulanay marka waxaan tagaynaa tusaalaha ugu buuggeena tusaalaha ugu horeeya wuxuuna dhahayaa 1 isku gee loo qaybshay 8 iyo 5 loo qaybshay 6 marka hore ereyga ugu horeeya aan rabo in aan fahno waa ereyga an ama iyo af Soomaaliga ereygan waa isugeen calaamadda isugeentaad u isticmaalaysaa markasta aad aragtaan labada number oo waxay u dhigantaa adigoo leh 1 loo qaybshay 8 lagu daray 5 loo qaybshay 6 sida hore aan aragnaba waxaan aragnaa hooseeyaha inuu samideen marka labadan numberka ay wadaagaan muxuu noqon karaa number labadooda aan u qaybin karo meesha marka waxaan hore u soo dhignay in LCM kala raadiya haddaba ama higher term ka dhigo hadda tusaalihii hore aan soo qaadanay inaad kor iyo hoos
ku dhufato nambaro aad raadiso waxaa ka dhow inaad raadiso LCM-ka ama dhufsana yaraha ay wadaagaan marka LCM-kiisa ku heli karnaa wadiiqo sahlan wadiiqada aan qaadanayo waa midda tan marka anigu hadaan tusay xariiqaas dhigaysaa labada number hooseyaasha soo qaadanaysaa 6 iyo 8 waxaa leedahay numberada aad isticmaali kartaa ee aad ku raadin kartaa ina LCM-ka hesho waa numberadan la yiraahdo prime numberska prime numberka ama tirooyinka mutaxan tirooyinka mutaxan tirooyinka mutaxan waa tirooyin go'an oo aan ayaga iyo hal kaliya ku yimaada si kale lagu meel karo marka la isku dhufto ayaga iyo hal kaliya lagu waxa kamid ah 2 waxa kamid ah 3 waxa kamid ah 5 waxa kamid ah 7 waxa kamid ah 11 13 17 way badan yihiin wayna hore u socdaan waa tirada marka tirooyinka kaliya ku yimaado isku dhufashadooda ayaga iyo hal kaliya marka waxaan ka bilaabayaa number aan u gelin kara labada number ma jira waa 2 waa u geli karaa 6 u qaybi 2 waa 3 8 u qaybi 2 waa 4 daba numberkayga dhufsana yaraha ee labadaba wadaagaan waxaan ku helayaa ano intaan isku dhufta aan seerka ka geliyo intaas marka maxay tahay marka isku dhufashadooda waa 2 lagu dhuftay 3 lagu dhuftay 4 oo maxay ku imaanaysaa waa 6 lagu dhuftay 4 waa 4 ilaa 10 labada marka isku dhufto waa 6 ku dhufo 4 waa 4 ilaa 10 alors numberka labada number ay wadaagaan ee aan ka dhigi karaa waa 4 sidaba 4 ilaa 10 uga dhiga marka maxaan ku dhuftaa 8 oo 4 ilaa 10 siinay 8 lagu dhuftay 3 way haddaan hoos 3 ku dhufto korna inaan 3 ku dhufto waa ku khasbana kor iyo hoos isku number inaan ku dhufto waxaa soo haray 6 5 iyo 6 maxaan 6 ku dhuftaa oo 4 ilaa 10 siinay waa 4 taan hoos 4 ku dhufto korna 4 inaan ku dhufto waxaa ii soo baxay marka inaan helay 3 loo qaybshay 4 ilaa 10 lagu daray 20 loo qaybshay 4 ilaa 10 haddaba waxaan helay 2 fraction oo labadaba hooseeyuhu ay mid yihiin haddaad higher term ku magacaabi lahayd waxaa macnaheedu yahay hal loo qaybshay 8 iyo 3 loo qaybshay 4 ilaa 10 way isu dhigmaan waa 2 fraction isu dhigmaan 5 loo qaybshay 6 iyo 20 loo qaybshay 4 ilaa 10 way isu dhigmaan maadaama ujeedada ay tahay maxaa ujeedadan loo isticmaalayaa in 2 fraction marka la isku dirayo hooseeyahooda la mid yahay waa in laga dhigaa wax isu dhigma oo la isku diri karo waxa la isku diri karaa marka ay isu dhigmaan oo hooseeyahooda la mideeyo bay isku miisaan noqonayaan marka hadda waxaan noo soo haraysa inaan 3dii ku darno 20kii hooseeyaashiina halka soo qaadano taan waxaa nooga soo baxaya 3 ilaa 20 loo qaybshay 4 ilaa 10 labada qaabba waa u dhigi karnaa inaan iskor saarno iyo inaan dhar u dhigno marka muhiimadda meeshan aan haddan dhigaynay annagu wuxuu ahaa in aan aragno tirooyinkan sida LCM-ka lagu heli karo ama dhufsanayaraha ay wadaagaan inaad hesho 8 iyo 6 iyo 10 dhufsanayaraha ay wadaagaan labadooda inay numbradan waxaan u qorayaa si maadaama space-ku fiican yahay hadda halkan waa muhiim tirooyinkan mutaxan
afka luqadda lagu yiraahdo ingiriiskana prime numbers wayna badan yihiin halkaan hadda kuma eka ama tirooyinka mutaxan waxaa ka mid ah 2 3 5 7 11 13 17 23 wayna socdaan ma aha kuwa dhamaada laakiin inta badan waxaa lagu shaqeeyaa kuwaas ugu horeeya marka la soo saaray LCM-ka ilaa uu number weyn noqdo waxaan ku daraynaa hal tusaale kale oo aan isleenahay asna waa uu muhiim buu yahay waxaan ku darayaa tusaalaha 14aad ee bejka buugga waxa weeye uu ku yaalo 78 waana su-aasha 14aad su-aasha 14aad waxay leedahay waxaan ku bedelayaa su-aasha 11aad su-aasha 11aad waxay leedahay 5 3 loo qaybshay 8 lagu daray 2 hal loo qaybshay 6 lagu daray hal loo qaybshay 4 marka waxaan haysanaa 3 hooseeya waa inaan soo saarnaa numberka ay wadaagaan marka hadda nambaradani ma wada aha fraction quman waxay isugu jiraan jajab isku dhafan iyo proper fraction marka horta waa inaan bedelaa oo aan ka dhigaa jajab maqumane iyo jajabka quman marka 8 waxaan ku dhufanayaa 5 3 waa ku daraya waxay noqonaysaa 40 iyo 3 loo qaybshay 8 lagu daray 2 ku dhufo 6 hal ku dar waa 13 loo qaybshay 6 lagu daray hal loo qaybshay 4 hadda marka fractionkaygii waan bedelay kulligood waxaan ka dhigay fraction ama jajab la sareeyo hooseeyo keliya waxaan rabaa marka inaan soo saaro 3 numberka ay wadaagaan waxaan dhahayaa nambaradaydu waa 4 waxaan jeclahay inaan kala hormariyo sida u kala waaweyn yihiin waxaan leeyahay numberkan saddexdooda aan u qaybin karo waa numberkee saddexdooda numberkee u qaybin karaa numberka aan saddexdooda u qaybin karo waa 2 3 kulligood waa qaybsantaa 4 2 u qaybi waa 2 6 2 u qaybi waa 3 8 2 u qaybina waa 4 ma jiraa number aan kulligood wada qaybin karo waa inuu noqdaa numberka marka LCM ka raadinayo kulligood inuu qaybsamo hadduusa kulligood u qaybsamin halkaasaan ku istaagayaa marka hadda waxaan arkay in ayuusan jirin number kulligood u qaybsamo aan heli karin hal ma ahane marka waxaan soo qaadanayaa marka in taan number baan isku dhufanayaa aan colorka aan saarayo gaarka ah kaasina waxaan ka helaya LCM-kayga ama numberkayga dhufsanaya wadaagaan muxuu noqonayaa marka waa 2 lagu dhuftay 2 lagu dhuftay 3 lagu dhuftay 4
laba ku dhufo waa 4 4 ku dhufo waa 12 isku dhufo waa 48 marka kulligood 48 inaan ka dhigo waa hooseeya mid walba marka waa inaan soo qaataa oon dhaha 43 loo qaybshay 8 maxaan ku dhuftaa oo isiinaya 48 waa 6 kor iyo hoos waa inaan ku dhuftaa 6 lagu daray waxaan soo qaadanayaa 13 loo qaybshay 6 maxaan ku dhuftaa oo isiinaya 48 waa 8 kana 8 baan ku dhufanaya lagu daray loo qaybshay 4 maxaan ku dhuftaa kor iyo hoos oo isiinaya 48 hoos iga dhigaya waa 12 kana 12 ku dhufto way maxaa iga soo baxay marka kan maxaa iga soo baxay kan maxaa iga soo baxay kana maxaa iga soo baxay ka bacdina waa isku daraya marka kan maxaa iga soo baxay waa inaan ku dhuftaa 43 inaan ku dhufto way 43 markaan ku dhufto maxaa ii soo baxay halkaanaan ku dhigayaa 43 lagu dhuftay 43 lagu dhuftay 6 kala gaara 43 ku dhufo 6 waa 12 xabad baan wataa waa 18 baan leeyahay hal baan wataa waa 6 ku dhufo 4 waa 4 xabadii 5 halka waxaa iga soo baxay 258 loo qaybshay 48 waxaan ogahay inuu hooseeyuhu kulligood mid yahay waana goolka anigu aan lahaa inaan hooseeyaha kulligood ka dhigo mid 13 waxaan ku dhufanayaa 13 hadda waxaan ku dhufanayaa 8 13 ku dhufo 8 waa 24 markaan 3 ku dhufto 8 labaan wataa labadii ku dar waa 10 halkan waxaa iga soo baxay 104 loo qaybshay 48 lagu daray 12 loo qaybshay 48 hadda hooseyaashay maadaama mid ay yihiin waxaan isu geysanayaa nambaradayda kaliya shaqadaasaa ii hartay ka bacdina waan fududeynayaa markaan isku darsado nambaradayda 258 lagu daray 104 lagu daray 12 waa 4 waa 7 waa 3 waxaan haystaa 374 markaan isu geysto kulligood 258 lagu daray 104 lagu daray 12 loo qaybshay hal keliyaad ka dooranaysaa waxaa ii soo baxay 374 loo qaybshay 48 waa inaan fududeeyaa marka oon si fudud u qoraa marka maxaan sameynayaa marka waxaan isticmaalayaa spacekan waxaa ii soo baxaya meeqa ayaa ku jirta 48 waxaa ku jira markaan 374 u qaybsho waxaan u gelinayaa marka ugu horeyso 7 waxaan ku dhufanayaa 48
waxaa haraaga meeshaasan ka ogaanayaa 56 28 23 374 waxay noqonaysaa 748 haraageennana wuxuu noo noqonayaa 374 minus 2 36 waxaa noo soo haraya 38 waan fududayn karnaa marka waxaan leenaha waa 7 labaan u qaybinaynaa waa 19 halkaana waa 24 kaasna waa final answerkeena marka cashirkeena intaasuu ku egyahay muhiimadda waxaa weeye dhufsana yaraha ama hooseyaasha inaad hesho dhufsana yaraha ay wadaagaan ama LCM-ka markaasna aad isku darto sareeyaasha markii aad isku darayso sareeyaashana waa in aad markaad hesho dhufsana yaraha ama hooseeyaha waa inaad midaysaa midayntuna waxay ku imaanaysaa sida hadda tusaalaha aad ka arkaysaan kor iyo hoos nambarka hooseeyaha midaynaya inaad ku dhufato number walba hadduu 2 number aad isku daraysid 2 faraq jajab ay yihiin iyo hadday 3 yihiin hadday ka badan yihiin halkaasoo casharkeena noogu